haween baa qaran hagaagta haween baan hadi ma fiirin ogyo buuran la eedo halbowla horumarkeenu iyaga weeyaan hubaale erkii nabadaynu joogno la'aantood lama بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا قيمها قدرينتا حشمدا مدن ميل كستو نغا داوانيسان كسو دواده برنامجكي عدك هاوينكا oo aad ka daawataan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland odayaal waxaan ku sugannahay xarunta wasaaradda deegaanka iyadoo oo aanu xafiiskeeda ku booqanay wasiirka wasaaradda deegaanka Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare iyadoo oo aanu ka wareysan doono wareysiyo dhinacyo badan taabanaya hadii ay tahay taariikh nololeedkeedii iyo hadii ay tahayba dhinaca wasaaradda deegaanka marka hore ku soo dhawow hooyo Shukri بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي أدمان يدنكم هاد علنا يدو إن رنتي ما أنت نقصوا بقطين وسعرده وحنا نوطي أنا شرف وين وانا دسول ويننا ما شاء الله آدي أدبادو ما هتصنت هاي إن وسير واحد وربحنا قصيصة تاريخ نولاد كاغي هدي أي تهاي هالكي أد كودالتي هالكي أد كوبربارتي هالكي أد وحكو صوبرتي يولي بشقدي وجوه رئيسي أد قبطه بسم الله الرحمن الرحيم رونا هانتي أنا ومقعي وشكر هاي اسماعيل بدرس هذا شاكته ومضبا أنا وحن كل شيء مقالة ده هرقيسة إسبتال كوينة هرقيسة وحن كبر باري مقالة ده هرقيسة بين حافظي اللي أورينشري بيرها أما بيرة اللي يدي هره أو هيد مالها مركا ودن كوجو هر مرسن أي كم ده هيد بيره وحبرشة يدي هرقيسة وانكو قاتي برعان وانكو قاتي بودنكي markii dambana maartay shahaadooyinka xaga aanu neersinka qaadanayna Hargeysa iyo Xamarba waan ku qaadanay marka aniga background-kaygu markii hore wuxuu ahaa umuliso neersing isku jira markii in badan waan ku shaqeeyay dalal wadankana waan kaga shaqeeyay dibadana waan kaga shaqeeyay markii dambana adigu digrigaygii dambe waxaan ku qaatay hadii aan la ku rooyay managementka taasoo aan maaragtay wax iyo business iyo management baan ku qaatay waanay wax badan way tartay run ahaantii dibadana in badan baan runtii ka soo shaqeeyay waxa adigu xusid mudan 22 sanadood laakiin ugu dambeeyay waxaan joogay dalka Somaliland 93 baan imi hadana 95 baan ku soo noqday ilaa 95 ilaa imka kamaan bixin waxaanan maaragtay runtii kaalin weyn oo mugla ka soo qaatay civil society-ga Somaliland ama dhismihiisa ha ahaato horumarkiisa ha ahaato wax ku oolkiisa ha ahaato civil society-ga dadkii rukumada waasay baan kamid ahay maantana de waa caan civil society-gu berigi hore lama aqoon laakiin runtii dadkii maaragtay laf dhabarka u ahaa ayaan kamid ahaa anaga iyo dad badan oo runtii maanta wada kaalmo mugla haya halka markaad ka timaadana waxaan ahaa komishinkii doorashooyinka ugu horeeyay Somaliland 6 sanadood baan halkaa u dhow baan joogay 3 doorasho xor iyo xalaal aan soo qabanay oo si wanaagsan maartay xukuumadda ugu aasnay maartay dimuqraadiyadii marka aynu doonaynay inaynu hirgelino oo maartay laga guuray habka qabiilka loo guuriyay habka maartay baartiyada badan ama xisbiyada badan loo guuray marka taana kaalin weyn oo muglan ka soo qaadanay hadana imika 4 sanadood iyo barkii u dambeeyay waxaan joogay imika wasaaradda deegaanka khayraadka iyo horumarinta reer miyiga ayaan joogay taasoo iyada qudheedu dama intii aan imika joogay runtii dadku aad u fahmeen maartay deegaanka ku noolahay faa'iidadiisa iyo hadii aynu ilaalin khasaaraha ka imanaya marka de taariikh nololeed aan imika isleeyahay ma sha Allah ayayana waanahay marka wax badan oo maaragtay ma sha Allah ayaa runtii aan soo maray ilaa waqtigii ilaa imika aad iyo aad baad ugu mahadsantahay sidaad noogu soo koobtay nooga warantay bal inta aad wax ku jirtay reerna waad lahayd soo maaha ilaa dhalinyarnimadii ilaa iyo shaqadan kale isku watay caruurtaadu waa imisa
haddii aad noo sheegto caruurtaydu dee caruurta Soomaalidu ma yiraahdaan mid iyo laba iyo saddex baan leeyahay Soomaalidu meelay joogaan waxaan malaynaa aqalka ugu yar baa 10 qof lagu soo koriyay markuu ugu yar yahay caruurtaydu way badan tahay runtii laakiin kulay anigu inantaydu waa guri bay leedahay dee walaalooyin bay leedahay waxay leedahay ehel waxay leedahay asxaab marka ma sha Allah tabaarakallah waxaad sheegtay shahaadooyin dhowr ah bal shahaadooyinkaasi dhowrka ah kulay waxbay u kala wada baxaane wax nooga sheeg kulay shahaadooyinka wax dhowr baan qaatay shahaadooyinka qaar dibadda ahaan qaarna gudaha ahaayeen intaba horta wax qabad baa la igu siiyay wax qabad wax ku oola ayaa runtii la igu siiyay oo kala duwan qaar waxay ahaayeen horumarinta developmentka ay ahaayeen qaar waxay ahaayeen ololaha ama aanu ugu jiro ama maartay kaalinta aanu ugu jiro horumarinta dumarka oo aanu la doonayno xaqoodii xuquuqdoodii waliba marka ay tahay ay timaado xagga awood qaybsiga ay timaado ama maamulka sidii uga qayb gali lahaayeen ay tahay taasoo kale iyadu waxaan ku qaatay iyadana dee shahaad baan ku qaatay waxaan kalaan ku qaatay markii aan joogay komishanka doorashooyinka qaranka wasaaradda intaan joogayna iyana ma sha Allah intii civil society la joogana shahaadooyin badan laakiin waxaas oo dhan ay tahay waxaas iskama imane waxa ku yimaadeen yani qofka bani'aadamka marka uu committed yahay wuxuu uu qabanayo uu ka saaro midmadowga oo commitment uu galay uu doonayo inuu xaqiijiyo ama maartay yool uu leeyahay uu doonayo inuu kamera dhaliyo ama xaqiijiyo ayay runtii ku yimaadeen marka waa Ilaahay mahadi bal waxaad wax nooga sheegtaa wixii caqabado kulay caqabaduhu way iska badan karaan way yaraan karaan kulay wasiir baad oo hawl weyn baad dhabarka u saaran tahay wax caqabado ka hor imiday intii aad wasaaradda deegaanka aad ku jirtay hawlaheeda horta wasaaradani waxa weyn waa wasaarad ballaaran waa wasaarad xambaarsan maaragtay waxay xambaarsantahay mas'uuliyad aad iyo aad u weyn deegaan marka la leeyahay waa waxaynu ku noolahay waa nolosheenii oo dhan oo meel isugu keenay ayaa la yiraahdaa deegaan kii badda iyo kii bariga iyo kii buurta iyo kii banaanka iyo waxa laaliyo waxa intaa u dhaxeeya aynu khayraadka ku dhex jira ama ha ahaato macdan ama ha ahaato biyo ama ha ahaato xoolo ama ha ahaato beero ama ha ahaato kalluun ama ha ahaato waxay doonto ahaatee waxay ku soo wada arooriyeen waa khayraadka ayay ku soo arooriyaan khayraadka maanta Ilaahay nagu manaystay dalkeena dadka ugu nasiibka badan labaynu nahay laakiin inteena badan ma ogin inaynu nasiib badan nahay wasaaradda caqabado fara badan ayaa naga horyimi caqabadaha lama soo koobi karo kuleyba laakiin waxaan anigu oran lahaa caqabada ugu weyn waxa weeye sidee dadku u fahamsan yahay fahamka bini'aadamku u leeyihiin khayraadkan ay isticmaalayno ee dabiiciga ee Ilaahayna siiyay ee nagu manaystay saynu ilaalin lahayn la khayraadka weyn isgareynayna Soomaha maalin walba waxa doonaysaa inaad kalluun cunto maalin walba waxa doonaysaa inaad beer wax ka soo go'ay cunto maalin walba waxa doonaysaa inaad tiraahdo waxa biyaan cabaya oo maartay meel biyo la'aan lama joogay maalin walbana waxa doonaysaa xoolaha nool ama inaad iibsato adiguna ku noolaato shilinkii aad bari siisato ama aad maartay qofkii cunayay meesha miiskaba loo dhigayaa haddaba khayraadkaad Ilaahay ina siiyo faraha badan leh sidii aynu u dhaqaalayn lahayn ilaan inagan waa iskarayna waynu isticmaalaynaa laakiin ilaan iska joogi maayaane ilaan dhinaci kale waxa la doonayaa sidii loo ilaalin lahaa sidii loo ilaalinayo ilaalideedii say noqonaysa saynu isaga maartay miisaanka aynu siinayno inaynu iska xil saaro inaynu ilaalino khayraadkeennii dabiiciga ahaa inuu xaggan aynu ka isticmaalo xaggan kalena laga ilaaliyo wasaaraddan waxay u xil saarantahay sidii haddaba ay u ilaalin lahayd khayraadka dabiiciga ee bini'aadamku isticmaalayo way bini'aadamku waxay isticmaalayaan waa beeri oo way qodanayaan dhulkii bay qodayaan dhulkii waxay isticmaalayaan waa biyihi baa waxa la isticmaalayo waxa weeyaan xoolihii waxa la isticmaalayo waa kalluunkii sidee waxaan loo ilaalinayaa miisaanka la siinayo ilaalinteeda wasaaraddan nuxurkaasi horta xambaarsantay oo wasaaradda runtii la baxday maartay deegaan khayraad iyo horumarintii reer miyiga oo ah reer miyiga waxa ay noo keenayaan iyaga inooga yimaadaan magaalada khudradda ka dhex baxda inaguma filla ariga ariyaha aynu ku dhex dhaqanaa inaguma filla biyaha aynu laaceel baynu ka qodaynaa magaalada dhexdeeda inaguma filla intaasoo dhan waxa la tegaya waa dabadiin waa reer
reer miyiga khayraadkiisa ay lagala soo baxay reer miyiga ayaa inaguna aynu maartay aynu ku sablay gareeyaan inoo keenaan binu inaguna ku noolaan la ilaalintiiba hadaba marka caqabado badan baa halkaan naga horiyay fahamka kaliya ee dadka koow talabaad waxa weeyaan marka dadku fahmaan maxay ka qabanayaan maxaa laga qabanaya sidee baynu xuga qabanayna maal iyo ruuxba in loo huro weeye maal iyo ruux iyo nafba in loo huro sidii loo ilaalin lahaa khayraadka weeye iska isticmaalun maaha iska isticmaal beeruhu waxay ku durkayaan xoolii waa laga sii xidhanaya biyihii wadiga arkaya oo meel baday gelaya kalluunka inagan la xaalifiyad maraakiibtu xaalifinayo inaynu ilaalina loo baahan yahay kii dhalay ukuntiiba iyaguna ay isku xaadhayaan markaad u eegto xoolihiina waa kuwaasoo dee halku daaqi lahaaba lama hayo waaba tan laga xidhayba meeshii laga xidhay macdantiina waa taa maanta aad arkayso aan la fahamsanayn oo qofkii maanta macdantaasiis yiraahda wax ka qabo ama soo saara la odhanayo anaa leh waa dhulkaygii taydii buur iyo banaanba inta loo watay halkii yareeda la yiraahdo macdanka iska soo saaraba reer baa sheeganaya qof baa sheeganaya meel allaaliya meel aad taaban karto wasaaradaasina ay taaban kartaa malaha ilaa ay intaasoo yani ka qabsatay iyagana waad yaabaysa marka eedo ma hawl yara caqabadaha wasaaraddan ka hor yimaada waad arkaysa qashinkii oo kaliya aad arkaysa gaarbijiga marka la eego ama la yiraahdo weyska ama qashin ama ha ahaado dareere ama ha ahaado mid adage waabad arkaysa ama mid guriga ka soo baxay haato ama mid dareeraha haato ama mid warshadada haate ayadan waynu u taagana oo waynu arkayna isaguna deegaankii buu isaguna ku tirsan yahay kharibaya waad arkaysaa maanta caagad baa meel walba taal waa dharagu warshadaha jira soo dejinayo biyihii laga iibsanayo laakiin guristeedii markaad adigu wixii keentay haddana basrinteedii baa meesha iyaduna ka maqan hawshu way badan tahay caqabado badan way jiraan laakiin waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanay waxa weeyaan wixii xagga maaragtay halka hanuguntay ka tolantaaye waxa shuruucday ka tolanta والشروع وكلية ما شرعنا إن مارت الجود قمول لهجو وشرع جدتكو أي مارت برتان شروع دو قفك مارت وشرعي دي ديال وافتشيو أي رنتي أي تاي مركز شروع دينا شروع بدن بانصو صاري إن أو عادي عاد وحكو أولا وحنصو صاري مارت جدتك إن أنا وحدقنا وما حاجة تعلينا هانت هاتو أما حاجة awareness كبهاتو بعيقلين هاتي إن وحيابها نداين جهاي وحين وصون قناي الدنيا دي ودن بامانتا كقيلنا يسا سحبك لو استعماله خيراتك عالم كي ودن باك قيلنا ودن كسبب ما أنت معورتون بوليه كي قشن كتو سعري أما نيكولر هذا أما هذا قشن عادي ميال وكأس ولاي ولا وريقي سني بدها عالم ككلولا دوناي oo de aad arkaysaa de kalluunkii wax loo ku baabaay waxaad arkaysaa khayr warshada ay la sameeyo qayraxada 24 saacadood waxa la soo saaray meel hadana weyskii la geeyay lalaay oo wadanka maanta kombiyuutarradii baa ugu daran waxa qashira kombiyuutarradii oo dhan xagee la geynaya maraakiib bay iska saarayeen la wareegay dadka la baray wax allaaliyo waxa maanta industry maarta ama horumar ay caalamku gaaray dhinacii kale effect ka leedahay oo dhibaato iyaduna ay ka leedahay markaad eegto ka wasaaradahan fara badan ay mas'uul ka tahay wax badan waanu qabanay wax badanna way harsan isma lihin gaalad waxay tahay drop in the ocean isma lihin qalinka in leeg baad gaadhi markaad waxa yaalay inoo yaala aad eegteed miisaanto isma lihin inta in leeg baa runtii gaadheen haddana maalin walba dawraad baanu dhaqaajinayn oo sidaasaan u dhaqaajin waxa laga yaabaa haddaanu laba tallaabo qaadno inaan hakanno oo wax badan hakiyaan laakiin waxaanu haynaa niyadii waxaanu haynaa maaragtay wax qabadka niyadeeda waanu haynaa haddaad niyada inaad wax bedesho aad niyada ku haysana oo aad leedahay waxaas waa inaan bedelaa by all means waa in waxaas aan bedela ilaahay adigoo la kaashanaya subxaanahu wa tacaala dee way ku hagaagaysaa waxaad haddaba warbixin naga siisaa wasiir bacaha jiray aad hawshaasi kaga aad keentay maalin dhawaadan waraysi aan qaadayayna ay gabdhuhu waxay qabteen ay ku dhex jireen barnaamijkayga wasiiradaba waxyaabihii aanu qabanay kamida bacihii inaan joojino haween haddaanu nahay oo wasiiradu ay horseedyadu noo ahayd bal bacahaasi wax way istaageen waxna way yara socdaan inkastoo intii badneyd balaa ku guuleysateen sidoo kale waxa meesha taala dhuxushii oo laga soo saarayo meelaha miyiga laga soo gurayo labada shay seebad wax uga qabataan
horta aan ku horeeyo tabacaha runtii bacaha madaxweynuhu wuxuu noo soo saaray dekreetadu ka soo saaray madaxweynuhu annaga oo kaliya nagumay socono waxay ku socotay cid kasta oo qaranka u haysa mas-uuliyad oo soo gasha xagga deegaanka oo isticmaalkeeda ama dowladaha hoose ha ahaato barsaabada ha ahaato wasaaradda dakhliga ha ahaato annaga ha ahaato wasaaradda warfaafinta ha ahaato wasaaradda waxa weeyaan wasaaradda warshadaha ha ahaato waxa laaliyo wixii dad badan bay dee qusaysaa bacahaas yaa xuseynayaan way nagu wada socotay taliyaha booliiska ha ahaato cid kasta ha ahaato way nagu wada socotay waxaanu wax wanaagsan horta waanu ka qabanay waxaan isku taxallujinay in dadka la wacyigeliyo in waqti la siiyo in la yiraahdo waqtiga ilaa waqtigaas intii u taalisay u iibiyaan oo u dhameeyaan waqti baa la siiyay 6 bilood intay ugu yartay baa la siiyay haddana waa loo kordhiyay haddana marka baalaya meel hablu ka soo socdo badu soo fadhiistay imku soo galo bacihii keenay haddana waa la yiraahdaa haloo bal hal eego laakiin waa Soomaalidu waxay taa ka badlay waa loo gogol badiyay waanu badinay gogashi badana laakiin waxa weeyaan xusud mudan marka ugu horeysa waxa weeyaan dadku inay kula fahmaan aafada ay leedahay bacd waa aafada ay bacdu leedahay horta dadku kula fahmaan bacdan waxa laga sameeyay waa chemical oo wax la isu geeyo chemical laga sameeyay waxyaabaha ugu badan oo kansarka laga qaadana wayada ayaan dhawaytoon xataa waxaan akhriyay iska daa bacaha waxaan akhriyay plastic oo dhan kansarka plastic waxa la lixi plastic waliba marka balastiga waxa kulul lagu shubo ayuu ka si khatarsan yahay markan kale caadiga ah ayuu ka si koobabka caagaga ayaa la inoo sheegay balastiga bal ayaan maalin dhow taakhriyay wiiga hore aan ka akhriyay haddaba dadkii koobabka caagaga ku dhex jiraan kuwa kansarka laga qaado waa maadad ku dhex jirta ayaa samaysa sida ay maaragtay oo wax kansarka laga qaado haddaba wax weyn dadkii isticmaalkoodii way barteen oo qofku markuu isticmaalkeeda barto dib bay ku tahay inuu markiiba isbedelo waqti dheer waa la siiyay waa dadaal badan baa la sameeyo ganacsatada kala sameeyo kuwa soo dejiya iyaga ma kuwa kale ay sameeyeen oo in kiish la keeno kiishkaasna waqti marka joogto iska baabaayo oo mara ah oo isagu iska baabaayo haddana waxa joogsan weyday oo tuuga lagu soo gashay habeen iyo maalin waa bacdi yaa ka ganacsada waa ganacsatadii hore maanta ma oran karayaan ma kama ganacsano wayaga midda labaad hadii koow iyagu ku noqdeen dadkii kan way arkeen wixii la joojiyay kor bay u kacay qiimihii bacdu kor markuu u kacay halkii bay minka kor bay tahay imka supermarketada soo dhan soo mar kuwa kuugu dhow tag koona ka sabatag supermarketada rag waaweyn leeyihiin sharafta leeyihiin waxa tagtaa gidi wada tag magacaabi ma way soo ogyihiin oo maalin walba waan la hadalay waa supermarketada oo dhan tag waaweyn mid joojiye male mid walba bacdina halkan ku haya xaggan kala tii kala ku hay markuu na arko ama qof yiraahdo weydiiya ayuu ugu raday inta kala bacda isticmaalay dukaamada oo dhan eeg suuqa halka hoose u taal barjaadlahan eeg ay halka u taalee loogu xiray suuqa la marayo waxa weeyaan mar xishood wax la horti jira bini aadamku xishoodka ma yaqaano Soomaalidu xishoodka ma taqaan waxay taqaana jeebka oo la xanuujiyo waxa loo sheego ma yaqaanaan xishoodka ma yaqaanaan laakiin jeebka markuu qofku ka xanuunsado markaas uu soo taagay khasiraad marka la khasiro markaas oo kale ayuu istaageen iyo marka dadkan bulshada iibsanaya ay ogaadaan dhibaatada ay leedahay deegaanka ku hayso oo maanta waa meel walba hadana qabsatay xooli baa cunaya bari xoolaha marka la qalay laga dhaxelo baxa maxaa loo joojiyay bari oranaya xooli imka waxa lagu joojiyay waxa marka dhacay hadii bari inta mid la qalo bacdaadi laga soo saaro soo adigu marka ma siideeno bacdii neef kuma cunin dawladdu waxyaabaha ka dagaalamayso waxaas ka mid tahay dawladdu waxay ka dagaalamayso bay waxaas ka mid tahay laakiin dadkii ma kula fahmayaan haddaan bini aadamka ama maaragtay qofka maaragtay muwaadinkii aanu isagu isxil saarin muwaadinimadu ma aha wax sahlan muwaadinku haddaanu isu xil saarin inuu isaguna kaalintiisa ka soo baxo waxa joojiyo ما انت حن ير كينيسة ما انت فسهاد كينيسة وحن waxa ka xun kuwa eegaya wanaagsan dadka gaagsan eegaya ku eegaya ama iibsanaya ka sii xun marka waxay tahay in la isugu tago xoog la isugu geeyo oo hadaad muwaadin tahay aad aragto bacinaad qaadan inaanad ku ridan inaanad gurigaaga soo gelin oo aad reerkaaga hadii odaygu reerkayda bac ku markay karaydu wax ku sida to waa wax ku oola
gabadhuna iyaduna iyana mas'uuliyad baa saaran caruurteedan ay ugu xusugu soo guraysaaba ka darane ina iyaduna yeelato wacyigi ay waxaan ku fahmi lahayd iska degdeg lahayd way waxa looma deeynin ciyaar xaloo deey ganacsigii dawladda cashuurteedii bay weydiiyeen runtii dawladdu cashuurteedu bay ku weyday waatan xuduud ka soo galaysa wajaale waatan ka soo galaysa kala bayd waatan ka soo degaysa maxay baa la yiraahdaa halaya waatan ka soo galaysa hawdkan meel walba waatan lagaga soo galay laakiin yaa shaqada leh qofka muwaadinka ah leh kow marabaadka waxa leh dawladaha hoose barasaabadu inay ku kontaroolaan weeyaan dawladaha hoose leh inay wasaaradda arrimaha guduhu ku kontaroosho weeyaan barasaabada iyo dawladaha hooseba oo leeyahay waxaan maxay u socdaan region kastaba lagu dabagalay maxay waxaan u socdaan waa in la khasiraa dadkan oo jeebkooda la xanuujiya lagaga qaada intay ku keeneen 10keed gaariga sida lala wareegay isagii wuxuu sidaba anu imaanta waxaan taaganay gaariga lagu qabto baa ee soo xambaarsan in meel aynu dhigano umadaaba u baahan loogu shaqeeyo ilaa bacad uu sidaabe waa aafo taas waxa gibaa dhuxushii baa timi dhuxush meel wanaagsan bay nala maraysaa maanta dad fara badan ilaahay baa mahadle aad baa loo bartay imanka in la isticmaalo waxa la leeyahay dhuxush bedelayay in la isticmaalo annaguna waanu fududaynay dawladuna runtii aad bay ugu fududaysay ama maaliyadda ha ahaato ama baarlamaanka ha ahaato dawladda ha ahaato madaxweynaha ha ahaato waa annagu wasaaradaha ha ahaato waanu fududayn waxaanu leeyahay cashuur dhaaf ku keena wax tayale oo hagaagsan oo umada anfacaya oo aad magaaladu ay dadku awoodi karaan iibsadaan u keeno oo bedelo dhuxush waayo dad badan baa isku taxalujiyay waa la keenay way socotaa wali halkeenu daaru goonayna may gaadhin laakiin suwacan ayay u socotaa gaastoo kale 30 bay ahayd markaanu nimi maantana waa 15 hudheelada ku karinaya way ka sii jaban tahay yani waa dad iyaguna isxilqaamay ama ha ahaato somgaas ama yungaas ha ahaato ama gaasyada kale kambaniyada kale ee keenaba ha ahaato waanu runtii aad baanu maaragtay ugu hanweynahay sida qolooyinkaasi anaguna 10 daqiiqo ma fadhiyaan xafiiskayga markay yimaadaan wuxuu baahan 10 minutes ma fadhiyaan markiiba waxay doonayaan waanu dhamayna hadduu alla ku roon yahay marka waxa kaliya imkan hortaagan waxa weeyaan sidii geedkii loo joojin lahaa maanta waynu aragnay abaarayna soo maray xunbayna soo maray dhirtii aynu xagaafnay ama aynu shidanayna dhibaatada inoo keentay baynu aragnay waxaynu u baahanay marka in geedka aad aynu ilaalino geedka intii la ilaalin karayo inaynu ilaalino inaynu dabada ka ilaalino inaynu garanwaaga shidano inaynu isticmaalno garanwaaga oo dhuxushan garanwaaga barano dumarow iska daayo galoolka iska daayo quraca iska daayo maraaga iska daayo waraysta marka aad geedka dhuxusha iibsanayso maxaad ka soo shiday dhaha geedka aad laga soo shiday hoos u eega geedka garanwaaga marka lagu yiraahdo qaata dhuxusha aan garanwaa ahayn ha iibsanina waa kala garanaysaan way kala culusiin ha iibsanina ma aha shilinkaynaanu eegno laakiin waynaynu eegnaa ilmahaaga ilmihiisa jiilba jiilka soo socda wuxuu reebi lahaa haddaanad ugu reebin aduu intiiba shoolada ku shubtay aad ku shubtay gargaraha ilmahaaga ka dhabarka ugu jira muxuu isaguna helayaa uu sugaya de waa ma jirto adiga haddaad kuwa sii shubtay saaka gargarihiiba waa inaad dhuxusha aad iibsanaysaan ay tahay garanwaa waa inaad isku taxalujisaan ragba lacag ka badan ay qaadka ku khasiraan isugu qaadaan waa inaad dumarka ku khasirtaan sida ugu iibin lahaydeen waxay kaga maarmayaan dhuxush oo nin walba u huraa uu soo saaraa waayo hebel oo u qaad $100 oo qaada 4 baa ku kala tagaya maalintii $100 wax ka yar oo konton aan ahayn ayaa u goynaya wax beeqaamiya dhuxush waxaan ka soo shaqaysay Candlelight muddo intee leeg baad ka shaqaynaysay waxyaabihii aad ka soo qabatay se maxaa ka mid ahaa runtii Candlelight waxaan ka mid ahaa asaasayaashii 95 baanu asaasnay runtii wax fara badan muddo dheerna waan la soo shaqaynayay wax fara badan runtii way qabataa oo hay'adaha imika ugu waaweyn hay'adaha waaweyn bay ka mid tahay ku koray wadanka dhexdiisa Candlelight wax badan runtii ayay qabataayo inta ugu badan 4 meelood baan horteedaan imika wax kale ku darin koow waxay ka ahayd waxa weyn educationka waxa tacliinta oo ay xarumo waaweyn leedahay waxa ugu xiga waxa weeyaan environmentka
oo iyadana wax fara badan ay ka qabteen ama deegaanka waxa ka mid ah caafimaadka oo wax badan ay ka qabteen waliba xagga gudniinka dumarka waxyaabaha waxa ka mid ah productiska ama waxyaabaha aynu inagu soo saaray dalka ka baxa inay iyaga qudhowda ay hirgeliyaan oo asli oo kale ay lagu hirgeliyo lagu iibiyo waxyaabo badan oo kale oo ay way qabtaan oo ah dhinacyada maaragtay had iyo jeer ama xuquuqul insaanka la shaqeynayaan ama la shaqeynayaan horumarinta dumarka ka shaqeynayaan ama ka shaqeynayaan haduu ay ku rooyeen dhinaca caafimaadka waxyaabo badan biyaha wax fara badan hay'adaha waaweyn ee wadanka shaqeeya kamid tahay ee hana qaaday maasha adigu marka booskeebad qaabilsaneed waqtiga anigu kuwii ugu horeeyay baan ahaa gabadhii ugu horeysay timi baan ahaa dibadda ka soo noqotay u yeedhay dadka ila fadhiistay anigu deelan kaliya wax ma qaban sacab kaliya garaaci karmaysid waan gacanta kalena cid u hesha marka dadka isugu yeedhay maaragtay 5 qof baa ugu horeeyay intayadii ugu horeysay asaasayaasha ahayd markii dambana group dhammaan naga daba yimi intii aan isugu nimaba qofba qof uu dhiibay xariga qofba qof uu xiriga u dhiibayay adigu intii isbedel intii jeeray isbedeshayba marba qof baa hayay hogaanka imankan Cabdirasaaq baa hayay markii hore Farduus baa ugu horeysay afarsan hoysay dadkii yaryaraha ee ka shaqeynayay baa ku soo koray baa imanka mas'uuliyadii haya marka taas waxa ku tusaysaa in aad siideeyso mararka qaarkood aad adigu deegaanad meesha uun ka taagnayn aad hore uga socoto siiso fursadda dadkii kula shaqeeyay iyo dadka yaryar ee maaragtay iyagu qudhooda ku dhex barbaarayba inaad fursadda aad siiso marka iyaduna meel wanaagsan ay maraysaa wasiir hawshan deegaanka waa hawl baaxad weyn in badan oo adigan waxyaabo fara badan durtaba intii yarada joogtay aad ka shaqaysay ama wacyigelin ha noqoto ama hawlo kale ha noqoto ama waxyaabo fara badan dadku ay fahansaneen inaad fahansiiseen deegaanka marka intaanad halkan imanin wax takhasus oo gaar ah ma u lahayd courses aan qaatay way jireen laakiin shaqada kan dhaleed ku jirtay horta aniga deegaan ahaan waxay soo jeediyeen 1998 ayaa markii ugu horeysay horta wacyiga uu furmay xagga deegaanka markaasay ahayd markaana Axmed Ibraahin Cawaale ayaan wada tagnay buurta gacan libaax iyadoo aad xaalufa oo xoolo badan ku jira dhir badan la garaacay si xun loo galay maalintaas uu igu yiri shukriye afar oday oo raggii hore ka haray baa joogay afarta ma gunayara ma siina oo $50 oo raashinka ah hal ugu ilaaliyo dhirta uu la gooyna maalinta dee lacagta ma baan hayno waxaan idin $200 oo halkan maran aynu ku bixinaa waa lacag badan $200 oo aynu halkan maran ku bixinaa dimeedeynayaan dadkan waaba dhulkan maran maxaynu ka qaban kareena wuxuu yiri hadaynu maanta inta joojin wax badan oo kale aynu joojin kareena horta halkaasan ka soo bilaab maalinta odayaasha aanu meeshii dhirta markaa from that day waxaan Axmed baa ahaa dad maarta aqoonyahan ahna jirkii dhiigiisana ay ku jirto xagga maaragtay deegaanka ilaaliya aba halka from that day waanu la qabsanay course-kii ugu horeeyay 10 casho la diray 10 casho intaan ka soo faa'iidnay ilaahay baa daa u tirsanay waa halkan bartay jarikaan biya marka dhulka lagu shubo jarikaankaasi markaad ku shubto jarikaan baad shubaysaa qunyar ilaa halku gaariya biyahaas iyo intuu dhulka gelayo jarikaankaasi yani qiyaastiisa waa intaan berigan bartay halku tagaya jarikaankaasi iyo intuu dhulka gelaya jarikaankaas taas waxa ku tusaysaa biyaha roobka ama daadku inta ay hoosta gelayaan iyo intay ay soconayaan haduu ala ku roon yahay marka waxa noqday dhiigayga gashay maantana meelaan iska soo qabtay ma jirto inaan qofku cunaha ku dhago markaan arko isagoo maaragtay imka casabinimada waxay ugu maqan waxa weeyaan sidaynu u gaadhnaa يعني سيدنا وحو قبدل aynu nahay sidaan aynu nahay wuxuu qabdel xagga deegaanka maxaa ku qabsoomay intii aad joogtay wasaaradda maxaa ku qorshaysan imika in qabsoomista wax badan baa ay qabsoomay waxa ka qabsoomay taa dhuxusho kala qabsoontay taa bacdo kala qabsoontay ta qashinka oo kala qabsoontay oo aan warshadaha iyo maaragtay ama hal galo workshop fara badan hal gale way tan qashinka sidee la yeelaya ayaa noo qabsoontay oo iyadana imika ku taagan taasa iyadu ugu daroon oo dhaqaaqeedu
aanu hayn dhaqaaq si waafiya sida kuwa kale oo xagga qashinka iyo dareeraha labaduba xagga waxaan moodaa weli halkaanu doonaynay ma aha de halkaanu doonaynay de weli kowma taagno anu nadariyadayda wax badan baa la doonaya kaa in laga qabto waxaa runtii noo qabsoomay xaggan maaragtay dhulka la iska xidhanayo inaanu intaa ilaalinayno oo dadkii ku wacyigelinay oo odayaashii ku wacyigelinay oo hertuulayaashii ku wacyigelinay adiga ayaa ka mas'uula haddii dhul la xidho tuuladaada dhul haddii la xidhaadaa ka mas'uula oldow imaka intii abaaruhii ay dhaceen dhul badan aad imaka noloo ka soo qaylinayo haddana xaggaa maaragtay aanu dadka ka wacyigelinay lama xidhan karo xoolo meel istaagaan ma hayaan oo dhulkii lama xidhan karo oo runtii meel wanaagsan bay noo maraysaa xafiisyo wanaagsan baanu dhisanay riijanadii oo dhan oo xafiisyo maaha uun dee xafiis baan dhisay xafiis shaqaynayo functionina oo dee dadkii tababaran yihiin ayaa noo hirgalay waxaa noo hirgalay dhir badan inaanu beero kuma maasha allah tabaaraka allah oo qaarkood aad yaabayso marka iyagoo saa u liqliqanaya aad aragto oo buuraha dusheeda oo imika libaaxley oo kale markaad tagto markaad daalo oo kale tagto markaad gacan libaax oo kale tagto markaad dhulka aragto ay dadka beereen ay qaateen tuulooyinkii meelaha lagu beeray oo dhan aad aragto waad farxaysaa dhalinyaradii nala beertay oo runtii iyaguna wax weyn nala qabtay oo nala beeray marka beerista aad iyo aad baan ugu horeynaa number 1 baan ku nahay xagga dhir beerista inkastoo xooluhuna dee halkii yihiin oo aanu intaa qaylinayno xagga dhir beerista soo saarista maasha allah aad baan u soo saaraa dhirta haddaad imka xagga dambe tagto tii hore maratay 80kii kuna geedo hore oo naga madhay baad haddana waxaad arkaysaa sida imka loo shaqaynayo waxaa noo qabsoomay haddii alla ku roon yahay inaanu xaggan wasaaradaha iyagu qudhooda xidhiidh aanu wada leenahay oo aanu dee isla fahamsannahay bal sidee wax loo wada qabanaya iyo in dhinac looga wada jeesto aad waxaan ugu mahad celinaynaa wasaaradda qorsheynta qaranka oo runtii nala dadaasha oo wasaaradaha la dadaasha oo ilaa sacad ha joogo ama ha joogo cali shoombe ama ha joogo wasiir qabyatire intuba runtii isku taxallujisaan bal inay deegaanka nagala shaqeeyaan waxaa mudan iyadoo xusud mudan iyaduna inaanu aad uga howlgalay in la soo saaro buuggii qoraalka dhulka oo isaga qudhiisu imanka soo baxay oo isaga qudhiisa la doonayo buugaas oo la doonaysna imanka in la faafiyo oo ku maqan imanka waa kan oo isaguna waa dhulka waa qabiil qoraalkii siyaasadda qaran ee dhulka Soomaaliland oo isaguna imanka soo baxay oo isagana aanu la suukayo yeeri doono wasaaradihii u qorshaysnaayoo dhan haddii la yiraahdo kaas isaguna imanka waa qabiil qoraal waxaa noo hirgalay annaga inaanu ka shaqeyno siyaasadii aanu ku hagi lahayn wasaaradda waxaa noo hirgalay inaanu sharciyadii qaar ay noo hirgaleen oo ka mid yahay sharciga dhirta iyo daaqa iyo kaymaha ama daaqa iyo ugaadha waxaa noo hirgalay laba kale oo imika baarlamaanka noogu jira yacni ma tirin kartid markaad ma soo koobi kartid waxqabadka wasaaradee noo hirgalay waad yaabaysaa tiimam soconaya 24 saacadood iyagana qayladooda riijanadii shaqaynayaan waxaa noo hirgalay in kulay mashruuca weyn ee SDF-ta si weyn looga faa'iideystay UNDP iyadoo qodheedii baraagaha iyo hawlo badan oo qabatay looga faa'iideystay waxyaabo fara badan oo aad amaanta la soo koobi karin oo wacyigelintuna kow ka sii tahay oonaanu intaa dagaalamaynaanu hadlayno oo miidiyada ka hadlayno oo hadalka iyagu aanu dhul u dhacayn oo runtii dee ku dadaalayna in dadka dhegahooda u galo ayaa jira haddii alla ku rooyahay iyo tababaro fara badan oo wadanka gudihiisa iyo dabadaba ay dadku qaateen tababarku maaha ka uun hay'adu ku siiyaan dadkeen waxay u yaqaanaan tababarka hay'adu ku siiyaan dawladdu shaqo kuma leh qaadimka lagu weydiiyo lagu tababar ma gashay waa dawladdu badeegaysa ma siin baad oranaysaa laakiin tababarada ay dawladdu bixiso waxa ka badan inkastoo ka badiyeen kuwa hay'adu haddana de waxay ku bixinayaan waa magac dawladeed ilaa la iskama kaasiinaya uun marka tababarada shaqaalaha iyo dibadana way baxaan gudahana way baxaan waa laga yaabaa bil walba in cidi dibadda nagaga maqantay bil kasta inay tiim ku maqan yihiin oo waliba yareyn marmar baa laba tiim midna Nairobi jira midna Addis jira marka tababaro fara badan oo dadku qaateen siyaasaddan ay siisay iyo maartay halkan oo kale ay ku qaateen dalka gudihiisa jira waxa qaar soconayaan in ku jiraan dawladdu wado oo ay institute ku wado halkan civil service institute ku wado baa jira marka alxamdulillah rabbil caalamiin ma gaadiid baa soo kordhay waxa soo kordhay wax badan marka ma hawl yarin
maxaa idiin qorshaysan mar haddii wax idiin qabsoomay aad ka warantay wasiir Shukri maxaa idiin qorshaysan imika runtii qorshaha noo qorshaysan wax weeyaan haddii alla ku run yahay waa tan imika siyaasadii la dejiyay qaranka ee ahayd maaragtay 5 sanadood ee soo socda waxa noo qorshaysan buga National Development Plan 2 ama qorshayntii labaad ee aynu Soomaaliland 5 sanadood soo socda ay yeelan doonto waxa noogu jira kaasaanu qaadanayna kaasaanu ku shaqeynayna wixii anagu aanu markaa naga soo go'een isleena waa qaban karaysan 5 sanadood soo socda baanu isleena qabataan 26 seere bal inaanu xidhno oo wax ka qabanaan noo qorshaysan waxa noo qorshaysan inuu aad data fara badan oo aanu ururino oo datada lagu maartay maadaama adduunyada isbedesho cimilada isbedesho data wanaagsan oo la ururiyo oo lagu hawlgalo oo lagaga hortago abaaraha in la helo abaarihii in markaa iyadoo oo la wadaayo humanitarian-kii ama dadkii la siinayo maaragtay marka humanitarian la leeyahay bini'aadanimada waxaanaynu ku bixinayno ay socon doonaan ayaa haddana waxa barbar socon doona kasoo kabashadii oon ahayn dawladda lagu hadlaynin cid kastaba ka qayb gasho haddii la yiraahdo kasoo kabashada marka haddii alla ku reeyo waxa noo qayb qorshaysan kasoo kabashada aynaanu runtii ka qayb galno haddii la yiraahdo oo seerayaashii dib u soo xidhno si daaqa u hagaago si dhirtii loo ilaaliyo in beeyadii oo maanta iyaduna suuq leh la ilaaliyo geedkeedii la ilaaliyo maadaama beeyaduna ay kaymaha ka mid tahay oo kaymaha la isticmaalo ka mid tahay inaan iyadana geedkeedii la ilaaliyo maadaama suuqeeduna uu imka wanaagsan yahay inaan deel maartay dabargo laga ilaaliyo oo la ilaaliyo sidii ay isu kabi lahayd ee u joogtay loo joogtay lahaa isticmaalkeeda iyo daryeelkeediba labadii ay isu maartay miisaami lahaayeen haddii alla ku roon yahay wax badan baa noo qorshaysan oo waxa weeyaan waa deegaan oo waa naftaas ay ku xidhan oo halkaas ku xidhan deegaanka naftaada ku xidhano neeftaadii baa ku xidhano wax geedkaasi oxygen ku sii deynayo habeen iyo maalin uu u safaynayo kaarboonka ku xidhan dhirtii inaanu badino oo maaragtay haddii ay cimilada isbedelaysa dadka dalalka waaweyn warshadaha la adduunyada kharibay iyaga kharibay hawada inta badan inaynu inaga qudheeno aynu dadka gaashaamano ayaa noo qorshaysan wasiir 2017 ku jirno ilaa 2021 weeyaan buuganisaad qorshayaashiina aad loo soo daabacay wasaarad kastaba inta badan 5 sano ay qorshayaashooda ku soo daabacaan imika kaba soo qaad wasiir baa bedeshay adigu waqtigii aad timiday bal wasiirkaasi inta badan dadweynuhu markay 5 sano la qorsheeyo ee ku jiro qofkii hawl baa ka dhex soo dhex geli karta qorshihiisii dheera visionkiisii uu doonayaa inuu gaadho marka wasiirka la bedelo amaba isbedel yimaadaan qorshahaasi halka digtee ee aad wax qabatay halka ma ka si amba qaaday kii kaba soo qaad adigu bedeshay oo kale isagoo markii uu ka tagay halka ma ka si amba qaaday mise jaha wareer baa imanayo oo talo halkeed ka bilowdaaba imanaysa runtii anigu markii aan imi buuggii la igu wareejiyay wuxuu ahaa baabuurta intuu yahay dhismayaashu intuu yihiin iyo waxyaabahaasi waxay yihiin iyo maxaa baanka yaalay iyo waxba ma yaalaan iyo waxaasay ahayn laakiin waxaan anigu isiri bal waxaad ka bilowdaa oo waliba anigu civil society-gana soo maray bal maxaa horta yaala aad eegtid halka waxa waliba waxay yihiin sidee marka waxa la yiraahdaa functional review ayaanu dalbanay oo shirkad hay'ad ka dalbanay aanu ku nuru waxaan doonaynaa in la qiimeeyo qiimo balina loo sameeyo qiimeyntii baan loo soo diray nin ka yimi Ireland ninkaasi wuxuu nala joogay bishii buu wuxuu tagay ilaa gobolada ilaa anagu nala joogay dadku wareystay cid kasta wareystay functional review-ga la sameeyay ama buugga la qoray ayaanu ka daba qaadnay maxaa meelaha ugu daranaya aynu ugu xunnahay maxay tahay maanu wada kabin wixii functional review ka soo baxay because mararka qaarkood waxa ku xiraysa resourceska ama waxa ku xiraya awoodda aad dhaqaale ayaa ku xiraysa markaasoo kale ay awoodda dhaqaale ku xidho oo kale waxaad ka qaban kartaa ma jirto laakiin functional review-gi baanu qaadanay aanu horta maxaa koow ka maba laha xafiisyo regionadu haddii leeyna waa dunsanyiinba dhulkiiba waa laga qaaday waa laga wareegay wali laba dhul baa noo haray oo aananu imika aanu ilaa xarbiyana midna waa Berbera oo nin degan yahay si kasta yeelayo laakiin imika waa iska dhowdhowdahay midna waa halkan oo isna waa iska dhowdhowdahay
function review gaa la sameeyey baanu ku socon xafiisyadii qofkii haddaanu xafiisku shaqeeyo bahayn haddaanu waxba garan bay fahmaynin ba horta isagu bal marka ugu horeysa qofka aad dirtaad ku tiri orado bal dadkaas oo wacyigeli oo deegaanka ka soo dhaadhici faa'iidadu leeyahay markuu geedku faa'iidadu leeyahay dhulku faa'iidadu leeyahay xaalufku siduu inoogu daray waxyaabaha ka soo dhacay doon isaga fahamsanayn soo kadeed ma markaas oo maahin qofkii la train gareeyo bal qof kastaba in maaragtay isku dayo inaanu train gareyno oo siino waqti oo isaguna dadkii kale ku sii wacyigeliyo halkii uu qofku kala qabsanaya waxa weeyaan markaan halkaa ku soo noqono su'aashaada waxa weeyaan halkii qofku kala qabsanaya hadhowto qofku marka buuggan oo kale waaba qorshahaasi waxbaad qabanaysaa waxna uu yaalaa u dhiman yahay marka halkaasuu kasii amba qaadaya marka loo eego qorshayaashaasi ay wasaaraduhu samaystaan iminka kaniba ka mid yahay wasiirka hadhow toole iman doona amaba ku bedeli doona amaba kii aad soo bedeshayba adiguba ma halkiibuu kasii amba qaadaya buugga intii aad qabatay maa intii kale mise jaawareerba ku dhacayo haddana soo bilowbuu odhanaya runtii bilowgu dee wuu jiraya waa wasiirku cusubaatay laakiin sida aanu functional reviewga aan sameeyey oo kan siri tolo baahidu maxay tahay laakiin anigu haddaan maanta ka tago wuxuu loo imanaya wasaarad dhisan oo wax badanna u baahan wasaarad deegaanku waa guri aad dhisayso ma dhammaanayo it will never end because xaggana waa laga isticmaalaya isticmaalkan faraha badan le dadka isticmaalayaan bad adiguna doonaysa dhinacan kale inaad dadkii tiraahdo u kaadiya ka warbal hala xidho geedkii la garaacay beeristiisa waa dee lagaa doonaya dadkeenu ma beeraan uu garaacay ilaahay baa beeran kore uu garaacay waxa weeyaan markaa miisaan xaggan laga isticmaalay adna inaad xaggan kale ka kabayso ood ka ilaalinayso ood ka wacyigelinayso oo wixii wax ku oola aad la qabanayso haddaba wasiirka dambe imanaya ama maaragtay markaa la wareegaya wasaaradaha waxaan anugu odhan lahaa waxay u baahan yihiin national planka in la raaco oo la yidhaahdo maxay noo qabsoomay halkaasaynu maraynaa intaasay noo qabsoontay marka qaarkood baa waxaad ku tala gashay aan waxbaba ka qabsoomin oo yaabaysa ayadoo oranaysa un dee wax ku hakinaya oo awooddu ku hakinaysa weliba kow wasaaraddan waxa ugu badan waxa hakiya waa awoodda xagga resourceska marka ay tahay awoodda maarta xagga kabista dhaqaalaha ay u baahan tahay iyo waxa loo qoondeeyay baan shaqaysku lahayn su-aashii ugu dambeysay dad badan baa ku daawanaya oo barnaamijkan codka haweenka la socda barnaamijkani wixii fariin aad fari lahayd dadka ku daawanaya hadday yihiin haweenka hadday yihiin waalidiinta hadday yihiin ragga waxaa jira xitaa haween fara badan oo dhalinyar ah oo jecel in ay shaqooyin qabtaan ama meesha ay ka bilaabi laayihiin garanla oo qaarkood iska niyad jabay oo jaamacadda dhameeyo iska fadhiistay marka bal fariimahaasoo dhan inaad israacisaan jeclaan laha fariintaan diraya waxa weeyaan tii aan horeba u diri jiray deegaanka waa lagu nooli deegaan haddaad maqasho waa noloshaada waa naftaada deegaan haddaad maqasho waa geedkaad harsanaysa waa cuntadaad cunaysa waa biyahaad cabaysa waxay miiskaaga lagu soo saarayo dhan waa hawada aad neefsanayso maanta ee nadiifta ah aad neefsanayso cimiladii way isbedeshay hal qof walow maskaxdaada geli sidii loo isticmaalayay khayraadkii caalamku isticmaalayay sida loo kala xoog weeye loo kala isticmaalayay China oo kale bal Japan bal China bal Paris ka eeg bal imka bariga dhexe bal dhulka eega waxa weeyaan sidii loo kala isticmaalayay loogu kala awood badnaa ay khasaarihiisina loogu kala awood batay laakiin khasaaruhu wuxuu ku dhacaa dadka danyarta ah ee Afrika oo kale ku dhacaa ee xoogeedu khasaaruhu inagu dhacay way hawada daan wadaageen wiilan adduunyada baynu ku wada noolahay caalamku waxa weeyaan inaynu fahamno inaynu ilaashino deegaanka duuduubniyu noqonina horta nadaafada ka dheh oo gurigaaga ka bilaaban oo dibadda uga soo baxa deyrarka iyo ooda oo bal ka qaada intaa maalin oo dhan dabayshu ay ku xidhayso ee dhaafaysan horta ka qaad qofka guriga ku jira ee haweenka iyo hablaha haweenka iyaguna gudaha ku jira ragga waxa weeyaan indhahoodii maba arkaan berigi hore anagu dibadda salaada hore aanu fiiqyar noo dhiibi jiraan cadeyn jiray ma garanaya magac dibo ma soo baxdo kii deerliina guduhu ku jira tii kale ood samaysatayna oo dalahina uba soo bixi mayso eegba mayso dibadii bacda ay oodu qabsanayso ama deerarku qabsanayaan iyo uskaga qabsanay horta dumarka ha soo baxaan
dumarku nadaafadoodii hore ku noqdaan kow waxba igama gelin iyo shaqadaydii ma shaqaynayso Somaliland kuma dhismin waxba igama gelin Somaliland waxay ku dhisatay waxba ka galay hadana adiga wax ka galin qof kasta way ka gashay marka labaadna waxaan weeyay war markaynu isweydiinayno leenahay maxaa dhaqaalaheena number 1 ka waa inaad fahamtaa inuu yahay xoolaha lagu nooliyay maanta aanu ka 8 bilood intii inaga xidhnaayno aragnay intii abaartu inaga leysayno aragnay dadkii magaalooyinka way soo galeen waynaga arkayna war inta inoo hadhay waa siid wanaagsan baynu haysanaa maanta inaynu rag iyo dumar dawlad culimo cid kasta ilaa qofka wax garadka ilaa tuulada joogdo inuu fahmo xoolahan inay nolosheenu ku xiran tahay haddii aanaynu daryeelina halkii ay maalintii dhota tagno baynu tagayn way maalintii darsi roor ilaahayna tusabahayd duruuska waaweyn bay inoo iman xoolaha way inaan dhulkii u banayna xoolaha way inaan dhulkii daaqi u xidhnaa way wixii anaga waajibaadkayga waanu qabanaynaa inta kale ummadda waajibaadkoodina ay nala qabtaan waxaan ku soo ururinaya aan maanta ku soo ururinaya dhuxusha way inaan dabargoyna bacda way inaan dabargoyna qashinka way inaan dabargoyna cimilada isbedeshay way inaan fahamnaa way inaan caalamka la soconnaa nafteena iyo nolosheenu inay tahay geedka iyo dhulka aad ku nooshay farintaasoo ma dafan dhalinyarana waxaan leeyahay haddii ay isleedihiin adduunyadu saanay ahaanayso ma ahaanayso oo saan ku soconayso ma idin ahaanayso idinka ilmaha wuxuu dhalo mid looga tagi maayo xisaabtan baa laga rabaa dadka aad la xisaabtamaysaan oo nala xisaabtamaysaan waalidkayga hore maxaa nooga tagteen maxaad ubadkayga uga tagteen ka dhabarkayga ku jira maxaa looga tagay way caalamku isbedelay waa la yuusgareeyay khayraadkiisa saasaa loo yuusgareeyay waa la kala boobay soo kabashadiisii baa dadna tahlayaan dadna aanay tahlayn dawladana way tahlayaan oo waxay beereen kuma malaayiin dhir la beeraya geed ma jiri kartid xabad ilaad fasax soo qaadato geed ma jiri kartid mid nambarsan baad dhuxusha ka shidanaysa adduunyana halkaasay maraysa adiguna waa maxaa ka galay maadaa la ilaahay baa beeray iyo waxaan cuno keentay shalayba xooliba iga baxay geedkii aad ku shid because waxaad u shiday baa ilaahayna xooli kaaga saar ilaa wadigan ku harsanay ka shiday dhalinyarada waxa leeyahay war xisaabtama hablaha waxa leeyahay xisaabtama war la isla xisaabtamo si fiican la isla xisaabtamo ha lagu xisaabtamo deegaanku muxuu yahay halkaynu maraynaa halkaynu gaadhnay maxay naga dhiman maxaynu qabanaynaa ha lagu xisaabtamo hadal yaan lagu xisaabtamin aad baad mahadsantahay aad iyo aad ayuu mahadsantahay Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo aanu kula kulannay xafiiskeyga annaga oo ku booqanay kuna wareysanay barnaamijka codka haweenka ee ka baxaya telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland daawadeen intaasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii codka haweenka waa anigoo ah Mune Ibrahim Dhakhtar dhinaca kamarada waa Cabdi Cumar Jibriil dhinaca habaynta barnaamijkuna waa Ugaas Maxamed Majabir waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh haween baa sama u hesha haween baa qaran hagaagta haween baan hadima beerin ogiyo buuran leedo halbowla horumarkeenu iyaga weeyaan hubaal erkii nabadaynu joogno la'aantood lama